fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto si aad u hesho sheekooyinkeena. Ha ilaawin inaad gambaleelka furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee arka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaad u difaacan kartaa diintaada. Waxaa jira dad isku daya inay diinta Islaamka si qaawan u weeraraan, balse Ilaahay xaggiisa kama ahaanin. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin Yahuudi ah wuxuu soo agmaray tuulo ay degan yihiin dad Muslimiin ah. Kadibna wuxuu naftiisa ugu sheekeeyay dadkani jaahiliinta ah diintooda shaki kaga abuur. Wuxuu ku soo leexday tuuladii. Intuusan tuuladii gaarin ayaa wuxuu la kulmay nin eri raac ah tuulada horteeda eri ku raacayay. Kadibna wuxuu yiri, haddaba kan ka bilow. Jaahilkan eri raac ah wuxuuna yiri diintiisa shaki kaga abuur. Asigoo iska dhigay nin Muslim ayuu u soo dhawaaday, wuuna salaamay, wuu la fadhiistay. Sheeko dheer kadib wuxuu u bilaabay mataaticiisi iyo inuu ku maadeysto diinta Islaamka. Wuxuuna ku yiri, miyaanan arkin dhibaatada naga haysata xifdinta Qur'aanka iyo akhrintiisa. Taasina waxaa keenaya Qur'aanka oo ka kooban 30 juz iyo aayado isku soo noqnoqda. Haddaba aayadahaas isku soo noqnoqda oo shaabaha waa in laga tiraamo labadii isku egba mid, sababtoo ah waxaa noo fududaanaya akhrinta iyo xifdinta Qur'aanka. Sidaas ayaan aniga jeclaan lahaa. Hadalkiisa markuu dhamaystay mataaticiisa, ninkii reer baadiyaha eri raaca wuxuu yiri, warniyahow, hadalkaaga waa mid lagu qancaa ee aniga su'aal ku weydiin karaa. Markuu intaas yiri, ninkii reer baadiyaha ninkii Yahuudiga wuxuu naftiisa ka dhaadhiciyay, haddaba kan waa lumisay oo gacantaada ayuu ku jiraa. Waxaana u raaciyay, bal soo daa hadalkaaga anigana aan ku qancay. Ninkii reer baadiyaha ayaa wuxuu yiri, waxaan ku weydiinayaa, jirkaaga waxaa ku yaalo 2 xubnood oo isku eg sida 2 lugood, 2 gacmood, 2 dhagood, 2 hindho. Haddaba maxaa mid labadii isku egba maxaa mid u gooy weysay si oo culayska jirkaaga kaaga fududaado? Ninka Yahuudiga markuu hadalkaasi maqlay, meesha ayuu ka istaagay. Wuxuuna yiri naftiisa ku yiri, bal kii reer baadiyaha oo eri raac ahaa ayaaba sidan kuula dhaqmaayay. Bal culimadii oo magaalada deganeed haddaad u tagi lahayd maxaad kala kulmi lahayd? Sidaas ayuuna ku laabtay. Wuxuuna ogaaday dadka Muslimiinta ah in diintooda marnaba shaki laga geli karin.